calankaara koorta sugnee kunidaysu taagneen kuneba taladi garanuu gushii hantinee dadyow gabigiin gacmaha isqabsada waxaa maanta si weyn looga xusay maalinta qaran ee 18 May degmada Ceelafin ee gobolka Sanaag shacabweynaha degmada Ceelafin mas'uuliyiin waayeel waxgarad maamul mas'uuliyiin ayaa sharciyada magaaladaasi ku soo maray socod luga iyagoo ruuxaya astaanta qaranka iyo erayqiira xambaarsan socod dheer kadib waxa la isugu soo biishubtay goob fagaara ka hadal oo loo asteeyay in loogu khudbadeeyo bulshada degmada Ceelafin ee gobolka Sanaag waxaana madashani ku sugnaa agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Somaliland maamulka degmada Ceelafin waayeel waxgarad boqorro salaadiin iyo mutasharraf kala aad u tiro badan waxa aan salaamaya iyagana madaxda qaranka ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biix Cabdi madaxweyne ku xigeenka iyo golayaasha qaranka dhammaantood baan salaamaya dhammaantoodna waxaan ugu hambalyaynayaa maalintan qaayaha iyo qiimaha leh ee 12 guuradii ka soo wareegtay jamhuuriyadda markii aanu la soo noqonay caalankeena kala soo maanta dabaaldegayno marka taas ayaa dhammaanteen aan isugu hambalyaynayaa aan ugu hambaynayaa shacabka Somaliland dibad iyo gudo meel ay joogaanba waan ugu leeyahay hambalyo annagu waxaanu idin sheegaynaa haddaan Somaliland wali dagaal maanu gelin laakiin haddaan ugu qasabtaan waanu gelaynaa meel kasta oo aad ka timaadeen baanu soo taaban doonaa waxaanu idin leenahay war nabadgelyada ilaaliya oo maatooyinka iyo masaakiinta beenta u sheegaysaan been ha u sheegina idin leenahay shacabka reer Somaliland waxaan leeyahay haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo wana lama huraane hagarle wuxuu qabo wana lama huraane hagarle wuxuu qabo ceergaabo qolada reer Sanaag ee wax ka garaacaysay abtiyaday weeye waxa la abtiyaday la saanood ku qudra qaato inagu Sanaag baynu nahay kuwaana aanu ducayno inagana hayna soo gelinina ceergaabo anigu dhalinyarada ceergaabo ku kortay baan ahaa eed baan ka qaxay uma horeyn qaxu hadda uma bilaabmin waad ogeed ceergaabo jiingadaha lagala degay dhulka lala simay waxa la abtiyaday abtiyal haynagu celinina ilaahay ka baqal la saanoodna iyaga assalaamu calaykum dhashay ee aan ka soo halgamay ee aan ku soo dhaawacnay midhaha la guranayo maanta aad baan ugu faraxsanahay farxadeeda lama soo koobi karo waxaanu ahayn raggii boqorku watay hogaaminayay sagaalaad ee meel walba ku soo dhaawacmay ee meel walba soo joogay ee wax walba ka sheekeynaya baan anagu ahayn iminka deenu qurba joog miye dhakhtar iyo wax baan u tagay xoogaa kama maqnaado sanad walba waa imaadaa degmadana waa dhisaynaa waa la hagaajinayaa dadkana waxaan leeyahay walaalaha gacmaha hays qabsadeen ka waantoobeen wixii hore khayr iyo barwaaqan u rajaynaynaa qurba joogta waxaanu leenahay weliba degmada Ceelaf weyn war magaaladii gobol bay ku dhowday kaalay oo dhista wax ka qabsada kordhiye intiinii baa ka dhiman ganacsatada way dhisatay maamulku wuu shaqaynayaa kaalada oo degmada kaalaya doonaya inaan halkan ka hambaliyeeyo madaxweyne ku xigeenka saddexda qolo qaran ciidamada qaranka dhammaantiin waxaan leeyahay hambalyo munaasabadda 12 guurada 18 May dhammaantiin waan salaamayaa shacabka jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan shacabka degmada Ceelaf weyn ee qaaliga iyo shacabka gobolka Sanaag maanta waa maalintii qaranka jamhuuriyadda Somaliland la aasaasay ee laga aasaasay magaalada Burco 18 May 1991 waxa aynu xusaynaa in doorashadii shacabku ay doorteen in Somaliland wadan la yiraahdo ay la soo noqdaan oo 1960 Juun xirnimada qaatay inay wali shucuurtiisii hayaan waxa kale oo aynu u dabaaldegaynaa waynu ku ducaysanaynaa inuu dalkeenu sii jiro qarniyo fara badan oo barwaaqa Somaliland guul waxaan halkan guud ahaan hambalyo uga diraynaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Somaliland ee aynu maanta difaaca ku jira kuwaas inaga mudan kuwaasna hambalyo u diraynaa waxaan leenahay
guulaysta ilaahayna ha idinku guuleeyo difaaca iyo jamhuuriyadda somalilan sidaa u difaacaysaan shacabka qaranka jamhuuriyadda somalilan baan u hambalyanayaa gaar ahaan degmada Ceelafweyn shacabkeeda dal iyo dibadba waxaan leeyahay maanta waa maalinteena xornimada jamhuuriyadda somalilan aynu ku dhawaaqnay aynu kaga dhawaaqnay magaalada Burco waxaan leeyahay shacabka hambalyo qaranka somalilan dhiig badan baa loo soo daadiyay waxaan leenahay dadka meelaha ka dhalacaynayna waxaan leenahay qaranka jamhuuriyadda somalilan waa isku filan yahay somalilan ha noolaato allahu akbar fatax wa nasr somalilan guul baan u rajaynayaa waa soo dhowaynayaa mas-uulka xukuumadda jamhuuriyadda somalilan nagala jooga ciidamada somalilanna waxaan leeyahay guul baan u rajaynayaa dhammaan shacab weynaha reer laascaanood iyo soollo waxaan ugu baaqayaa inay miiska wadahadalka iyo nabadgelyada yimaadaan dagaal wax allaaliya wuxuu inoo soo sidaa ma jiro reer Ceelafweynna waxaan leeyahay ilaahay aynu ka baqno nabigiina aynu ku sallino horumarkeenna iyo nabadgelyadeennaana aynu xejisanno wax kastaba nabad baynu ku caanamaalaynaa oo horumar ku gaadhaynaa mar walba waxaan idinku baaqayaa inaynu nabadgelyada ilaalino oo aynu nabadgelyada meel walba uga soo wada jeedno meel adag aynu iska taagno dhammaantiinna waan idinku hambalyaynayaa sanad guurada 18 May Somaliland ha noolaato halkan waxaan ugu hambalyaynayaa shacab weynaha jamhuuriyadda Somaliland 18 May waxaan kaloo hambalyaynayaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Somaliland 18 May waa maalin taariikhiya waa maalin jamhuuriyadda Somaliland ay xurriyadeeda la soo noqotay waa maalin Somaliland dhan looga dabaaldego waxaan leeyahay hambalyo intaa kadib waxaan u hambalyaynayaa dhammaan Somaliland maalinta ay dhin Mayda ee loo dabaaldegayo degmooyinka iyo gobollada dhammaantood looga dabaaldegayo ee bacadka looga taagan yahay maalinta qaaliga baan u hambalyaynayaa dhammaantoodba hambalyo dabadeed waxaa lagu soo duulay qarankeenna Somaliland degmadii Laascaanood rag in badan 15 sano ee ay nimcada iyo horumarka ku jirtay waxay gaadhay heer aan Somaliland gobolladeeda kale gaadhin bay gaadhay meesha la yiraahdo Laascaanood degmada la yiraahdo Laascaanood waa loo qoodhi waayay horumarka siyaasad ahaan bay u horumartay dhaqaale ahaan bay u horumartay aqoon ahaan bay u horumartay nin 15 sano dibadda ka meerayay oo aad moodo mid shaydaan oo saax dheer fadhiyi jiray ayaa ka adkaaday oo maskaxdii ka bedelay oo meemiri noqday oo dadkii deganaa degmada qaxiyay oo maatadii qaxiyay oo barakiciyay Laascaanood waxay ahayd degmo ay soo galaan maalin kasta in ka badan 100 baabuur oo sida ganacsiga noocyadooda kala duwan maantana waxa soo gala in ka badan 100 baabuur oo maleeshiyaan iyo bilaaya sida taas waa ayaan darada ku dhacday marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha jamhuuriyadda Somaliland meel kastoo ka dabaaldegayaan gaar ahaan degmada Ceelafweyn dhalinyaro waayeel haween odayaal dhammaantiin aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa xafladda ballaaran iyo sidaa u soo camirteen waan idinka mahadcelinayaa waxaana idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib waxaa maanta inala jooga agaasimihii guud waa xafladday nagala soo qayb galay ee wasaaradda gaashaandhigga Mustafa Cumar Yare oo degmadana u dhashay nasiibna maanta u yeeshay inuu degmadiisii kula dabaaldego 18 May waxaa leeyahay Mustafa hambali soo dhawow baa leeyahay intaa kadib waxaan leeyahay waxa isa jooga xafladda boqor maxamed jaamac waana abti u ahay isagana waxaan leeyahay ku soo dhawow xafladda waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland madaxweyne ku xigeenka labada gole waxaan leeyahay hambalyo ciidanka qaranka dhalinyarada Somaliland meel kasta dunida ka joogan waa in calankan iyo waxa weeye jamhuuriyadda Somaliland waqti adag baa loo soo maray waayaha baa loo soo maray rag baa inaga dhintay maanta looma baana in dhalinyaradu ay dumiso ama ay garan weydo qadiyadda Somaliland waa mid waxa weeye calanka Somaliland
waa mid nagu suntan waa mid qalbiyeeda ku yaala gabagabadina waxa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Celifin Maxamed Aadan Digaale agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Mustafa Umar Faarax maayirka xigeenka degmadaasi Maxamed Jaamac Liibaan Hindi iyo xogayaha fulinta dawladda hoose ha noolaato Soomaaliland guul awalan waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iskugu keenay munaasabadan quruxda badan iyo nabadgelyadan iyo jawigan degan ee barwaaqada iyo roobka iyo nicmadu ku sugan tahay ilaahay baa nimcada iska leh mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa shacbiga reer Celifweyn sida wanaagsan ee quruxda badan ee qiimaha badan ee isu soo abaabuleen hadday tahay dhalinyarada hadday tahay haweenka hadday tahay waayeelka iyo hadday tahay maartay waxgaradka iyo guurtida iyo boqorada dhammaantii waxaan leenahay anoo ku hadlaya maamulka degmada Celifweyn aad iyo aad baad u mahadsantihiin waana wax la idinka filayay runtii inta ka bacdi waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga Mustafa Umar Yare oo isagu inooga soo kicitamay caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo inala joogay muddo asbuuca waxaan leenahay nina dhaqashuu kugu dhawargay nina dhuunibu ku dhex jooga sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa boqor Maxamed Jaamac oo ah laf dhabarta degmada waxaan leeyahay boqor intii aad noo timi degmada nabadgelyadeeda aad iyo aad baa wax uga bedelmeen shacabka reer Soomaaliland dhammaan meelay joogaan ba nabadgelyada way ka shaqeynayaan gaar ahaan degmada Celifweyn boqor waxaan leenahay nala sii joog insha Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Soomaaliland ha noolaato reer Celifweyn ha jireen ha joogeen inta dabadeed ilaahay ayaa mahad iska leh maanta inagu kulmiyay xafladan qiimaha badan leh ee ah sanad guuradii ka soo wareegtay ee 12aad ee 1990kii lagu qabtay 1990kii lagu qabtay caasimadda la yiraahdo Burco waxaan taaseen maanta xuseynay waxaan runtii aad iyo aad halkan uga faa'iideysanayaa aan rabaa inaan u mahad celiyo shacabka reer Celifweyn ee runtii sida qiimaha iyo xasaasiyadda badan u soo dhaweeyay u soo baxay aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa intii ay noo taagnaayeen bacadka waa maalintaasay xuseeyeen waa maalin qiimo badan aad iyo aad baan iyaga ugu mahad celinayaa waxaan ugu horreysay waa mahad celinta waxaan rabaa in allaale iyo intii ka soo qayb gashay oo ay xukuumadda madaxda sare ugu horeeyo agaasimaha dhaqanka ugu horeeyo boqorka maamulka degmada maayirka ugu horeeyo abwaankiina la joogay saxaafadda haweenka dhalinyarada urur kastoo ka soo qayb galay nooc u yahay kii wasaaradaha ahaa mid aan xuseeyo mid aan xusin waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin reer Celifweyn waxaan leenahay ay isku duubnaano nabadgelyada aynu ilaashano cidii wax ka xuyihiin waxaan leenahay Allah soo hagaajiyo inta la xusay ee maanta dhan laga hadlayay waxaan leenahay ilaahay nabadgelyo dhamaantood ku soo wada celiyo waxaynu hambalyo iyo bogaadin u diraynaa dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland ee ay ugu horeeyaan reer Celifweyn ee ay ku xigaan reer Sanaag ee ay ku xigaan dhammaan shacabka reer Soomaaliland oo dhan meel kasta ay joogaan waxaan sidoo kale hambalyo iyo isgarabtaag iyo qadiyad iyo waxa weeyaan qalbi wanaag u muujinaynaa ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee habeen iyo maalinba u taagan difaaca qaranka iyo waxa weeyaan ilaalinta xuduudaha gudaha iyo dibadda waxaan sidoo kale kelmad hambalyo u diraynaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiid madaxweyne ku-xigeenka golayaasha qaranka iyo xisbiyada qaranka dhammaantood waxaan leenahay hambalyo sanad guurada 32aad ee maalintii aynu madax bannaanideena dib ula soo noqonay ayaan dhammaan shacabka oo dhan ugu hambalyeynaa iyo dhammaantoodba sidoo kale waxaan halkan doonayaa reer Celifweyn waxa muujiseen maanta shucuurtiinii waxa muujiseen qadiyadiinii taasi waxa ay muujinaysaa inay reer Celifweyn yihiin dadkii buddigay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la idinka rabaa inaad halkaa ka sii wadaan waxa la inaga rabaa inaynu dhammaanteen u shaqeyno sida ciidanka
oo aynu nabadgelyada gudaha iyo tan dibadda aynu ilaashano. ujeeddada aynu maanta halkan isugu nimi waxay ahayd inaynu xusno maanta maalinta qiimaha leh ee aynu la soo noqonnay qarannimada Soomaaliland 18 May sanad guuradeedii 32 waxa ay ku timi ama wadada loo soo marayna waddo dheer bay ahayd xukuumad baynu ka tirsanayn dal baa jiray markii laga waayay dawladdii jirtay ay noloshii u diiday dadkii dhulkan deganaa isir sooc lagu sameeyay qabyaalad lagu sameeyay laga waayay cadaalad dil loogu daray dhac loogu daray kufsi loogu daray ummaddu way tashatay way isu timi in la iska dulqaado maamulkii halka ka jiray Elfweyn waxay ka mid ahayd meelihii ugu horeeyay ee dadkeedu ay dhaqdhaqaaqii wadaniga Soomaaliyeed ay abaabuleen kuwii dagaaladana ugu horeeyay bay ahaayeen kuwii ugu horreeyay bay ahaayeen raggii ka dagaalamayay waa kuwii halka inooga cadeynayay tii baynu la soo noqonnay tii baynu maanta halkan ugu dabaaldegaynaa ilaashadeeda iyo wax ka qabadkeedana maanta waxa ku helaynaa waa isku duubnida muujiseen waa wanaagga muujiseen waa dadaalka muujiseen wax ku baranayno caafimaad ku haysano wixii naga dhimanna insha Allah waxaan ka rajaynayaa inaan heli doono haddii halkan aad looga xusay in dhibaato ka jirta gobolka Sool wuxuu ka mid yahay Soomaaliland duulaan baa lagu soo qaaday duulaanka lagu soo qaaday waxaanu leenahay difaaceedii baynu leenahay kalsooni baan ku qabnaa inuu qaranku iska difaaci karo kalsooni baan ku qabnaa iyadoo ummaddeena loo turayo oo aan lagu talax tegaynin in cadowga la isku soo duulayna laga saari doono inagu shicib ahaan waajibaad baa qaranku idinku leeyahay idinkuna xuquuqba ku leedahay qaranka waajibaadka qaranku leeyahay waxa weeye inuu nabadiina ilaaliyo inuu horumarin soo gaarsiiyo in public serviceski ama arrimihii bulshada u baahnayd inay heshaan idinkana waxa la idinku leeyahay inay isku duubnin la timaadaan qarankiina dhinac istaagtaan ciidankiina dhinac istaagtaan dad isku duubnina muujisaan markaynu reer Elfweyn nahayna waxba inoo gaara taynoo gaarkay waxa weeye inaynu isku duubno dadaalno maamulka maanta wanaagsan ee aad doorateen la shaqaysaan horumarka ka shaqaysaan noloshana waxa horumar ah waa nabadgelyada maxamed suuta telefishinka qaranka Soomaaliland Elfweyn